qaballe dhowr xiriyo waaweyn bay ahayd sideedaba xerada cadaanka ku nool yihiin Chinese-ku joogaan ee taliska abu ahaa talagalka ku talagaleen camal ah uu qaadan waayay baa bal maxaad ka xasuutaa habeenka u yeeray dhawaaqay oo kacay anagu dhalada iftiinkeedan ragga ku aragnaa layr saas ma arkaynin laakiin hoolka uu nagu banaan yahay waxba naga ma xidho laakiin darbiga kaamirada dhaladu yaa dhanka shac darbigii ku dhuftay aad calawad hal meel buu na seeray markii labaad guriga taliska albaabka ku dhufamaana dhihin daaqada uga gali baan ku daaqadiiba sidii oo kale intuu uga galiyay hada darbigan ku dhufato kala food qaada lagu weeri waa barqim subaxba aruur horaba gurmad noomaan inaska xerada dhexda laga qabtay xerada laba meelood ahayd qayb waa qaybta taliskoodii isgaarsiintoodii iyo gaar bay u go'aanayeen Chinese-kan iyo waardiyahoodii qaybna wuxuu ahaa taliska ciidanka oo gaar ah qolada yar dagaalanta bay ahayd qolyahana waa difaaca kore iyo ciidanku ah hadaba xerada bartankeeda galeen oo silibkii iyo waardigoodii wax dhan dhaafeen wuxuu ku baraarugay cadowgu xerada bartankeedu difaac waxbad ka dhacaysaba dagaalkan qolyaha waxbad u horriday waa qolyaha Chinese-ka galay salaada subax ay on wali ado salaada subax waxaan rabnaa inaan markan aan diiradda saaro dagaalo waaweyn baa ka dhacay ogaadaya intaad joogtay ciidanka jabadda xoreynta ogaadaya aad ahayd dagaaladii kuwa taariikhdooda laga warramay iyo kuwa aan taariikhdooda laga warramin hadalkaagan sheekadu waa sheekay ku keentay sheekadaadanu sheekay ii dhiibtay waxay ii dhiibtay kurs baa waxaan tagay 2019 annagoo safara dhowr jeer baan tagay laakiin markaas ay ugu horeysay 19 bishii Abraad baan u maleynayay inaan tagay waxaan ku arkay qabriyo 40 miyay ahayd 41 qabri meel baan arkay qabri waxa lagu 41 naftooro baa ku shiiday magaalada ku dhexdeeda meesha ku shiiday naftoorasha magaalada dhexdeeda ku shiideen adigu markaas waxa kamidaba ragga ku shiiday ninkan kula maalinkaas labada nin ee reerka naga aaday Axmed Nuur Xiish ragga maamulka ciidanka ah ee maalinka guris ku shiiday dambo ka waran maalinta guris waxa ka dhacay afartan naftoor waa meeshii ugu horeysay ku shiidaan maleynaya hay sarun weeye ana waxaan ahaa xilligaas qaybta qorraxay urur saddexaad oo lan jiro gobolka Shabeelle ka howlgeli jiray dana baan ahaa qaybtaasi waxay ahayd nogob ama hanqad qaybta hanqad bay ahayd waxay ahaayeen urur ka howlgeli jiray deegaanka degmada Iimay iyo ilaa qarrida iyo ka howlgeli jiray naftuuro la oran jiray deeq mahadna uu ka ahaa taliye urur maamul ciidan oo badanna waliba laba taliye urur bay ku socdeen meesha marka ay dagaalka galayaan waxaa jiray cadow aad u fara badan oo meelo badan ka soo kala baxay degmooyin badan dhuxun iyo garbi iyo deegaano badan ka soo baxay baa wuxuu soo maray noqob taas soo dhax jiray qarjaqooda soo dhax maray jidgooyooyin bay u dhigteen jidgooyooyinkii oo dhan buu cadowgu ka badbaaday oo markay wadadan xidhaan tu kale marayaan tamaga magaaladu ka galay guris magaalada markuu ka galay iyaga qayb waxay dhaheen magaalada ku weerar qabna waxay dhaheen warmay magaaladiina ku weerarina aynu cadowgu intuu banaanka uga baxay aan sugno ma ina suurtagelinadaba waxay noqotay inay weeraraan guristana sideeda meel dagaalada u badan bay ahayd oo dagaal ka horeeya jiray oo Allah yarxamay abanduulkii guud gaashaandhig mar uu ku galay sheegtay isagana naftooryaal dhowr kaga shiideen oo ku furteen cadowga qalab badan kaga furteen waxaa jira hadda meel dagaal badan ma ka dhacay gurista qoliyaha hadda waxay iska dhigeen saddex qaybood bay u weerartameen way jibiyeen mar labaad bay jibiyeen markii saddexaad qoryo dhishika ay wadatay u rakibatay qolyahan jamada dhaawacoodii baa batay hadda waxaan isleeyahay dhaawacoodu markuu batay waxay isku dayeen inay dhaawaca bixiyaan
taadkada ciidankana waxaa ka mid ah dhaawacaagu hadduu bato waa inaad isdifaacdo inaadan bixin dhaawacaagu hadduu bato haddaad damacdo inaad qaado waxuu noqonaya ciidankii dagaalamaya inuu dhaawacan qaado cadowgu fursad kaa helo ninkan dagaalamaya hadduu dhaawac qaado wuxuu banaynayaa furintii uu ninka cadowga uu kaaga difaacayay dhulkan dhul bannaan oo magaalo abu ah dhaawaca badnaa dhaawacii bay qaadeen dhaawacii markay qaadeen waxay noqotay inuu rag badan dhaawacii ku shahiido qaadayay oo ilbanaantii ilaahay amarkiisa ma ayna furanin iyagu waxay furteen mooyeen iyaga qalab lagama furaninba laakiin waxay noqotay inuu raggii dhaawaca qaadayay shahiid ka bato oo weerarka ay weerarayeen ay cadowga caydinayeen ay jabinayeen inay qoryaha waaweyn dhashikii ka reebaan oo meel fog wax ka dilaya markii dambana dhaawac ay qaadayeen uu ku keeno inuu raggii shahiido shahiid badan oo imaado dagaalka gursadaba saas oo ahaayo weerar ay jabada weerartay buu ahaa waa tahay naftii hore waxaan rabnaa bal markaan fiirino waan de waqti badan baan sheeko yaro macaano shaahun baa inaga dhiman hadaan shaah helayn way fiicnaan lahaydo kama xiisa dhigayno markaan ka sheekaynayno duruufahaas naftii horeyaasha iyo meeshii mareen dagaallo waaweyn baa ogaaday ka jiray sidoo kale habeenka coboloo kale habeen marka dagaaladaas dee waxyaalihii ugu cuslaa Etoobiyaanku ama Absiiniyaanku waliba ninkii Malasanaawi ahaatay waxaa la igu yiri habeenkaas aad buu sheeka la sameeyo meel ka timaad garan maayo waxa la yiri si ninkii ahaa Samoro baa Malasanaawi tuutiga yaali horma la soo codolo waa la qabsaday talagalkii ku talagaleen camal uu qaadan waayay bal bal maxaad ka xasuutaa habeenka iyo cobolle anu waxaan ahaa danab xilligaas waxaan ahaa maamulkii ururkii saddexaad ee guddiga ka howlgeli jiray Shabeelle waxaan joogay rug ama taarka ururka oo lahaa anaa joogay xilliga taarka waxay kala soo hadlay taliskii qaybta oo hadda ma garanayo qofkii inuu abaanduulka qaybta oo Cabdullaahi Yaasiin ahaa inuu ahaa Maxmed Anni oo taliyaha qaybta ahaa midkoodii kolka aanay soo amray ma garanayo taliskii qaybta laga soo hadlay waxa la igu yiraahday habeenkaas taariikhdu inta tahay xirada guday magaalada gudayna waa inaad gashaan dhanaana waa inaad gashaan labada xiro ciidanba waa inaad gashaan oo falka fulisaan laakiin lagu ma dhigin bishaad sameeysan annagu meel baan weeraraynayo waxa lagu ma dhigin ma lama dhigin ma baahay ma duruufta ciidanka iyo ururka aniga ciidanka kolka aan xukumay lama wadaaginba ma ahaynba qofku meesha loo socdo lama sheegayo bas anigu taarkii iyo rugtii aan la joogay waxaan kaga tagay wiilal kale oo meesha joogay oo ciidankii kala qoliyo qori barduleela wata waxaan u diray magaalada guday magaalada dhanaan xirada dhanaan ma ku dhiso arbusha ana qori sabanaan qaatay waxay raacay 9 wiil oo kale waxaanu aadnay hadaba xirada ciidanka ee guday xirada gudayna duruuf gaar ah aniga leedahay oo mar gaar aan ka sheekayn doono mar baan ku xidhnaan jiray anoo dhaawac intii la qabtay ma ku taraynaa hadaba guday waan kala qanay xiradan ciidanka brigade ee taliska ciidanka laga xukumo dhinacan u baxa wadada jijiga u baxda ama qabdahar ama dhanaanba xirada ciidana ku taala markii laga baxayo magaalada gacanta bidixda waa taliska ciidanka brigade laga xukumo weeye xirada brigade-ka waan ku xidhnaan jiray waan kala qaanay storekeedana qaanay waxaan qaanay guriga taliska ee saraakiisha ciidanku ay seexdaan baan qaanay waxaan qaanay garoonka meesha ay ciyaarta ka daawadaan hoolka ee ciidanka lagu shiriyo TV-ga ugu xidhan yahay habeenkii ciyaare jiraan ay ka daawadaan waxaan ahaa annagu aan xilligan ku xidhnaan iska yar baan ahaa waxaan la qabsaday ma aad siga ka ilaalinayni marka meeshan si fiican kala garanayada in kala garan guri walba aan garanay wuxuu ku calaamadaysan yahay aniga hadaba habeenkii baanu soo guuray niman waxaan wada soconay aad u yaqaan deegaanka ka dhashay gudayda aftuur hadda noolba u jooga Gaaris بدل قرآن اللي يلاحظه بدل أوبري يعني رج بلان بانو هاين رج شيء دي إن حسن داعي لورينتني
raggii nin sashiiday oo sheekh deeq qabti uu ahaayo walaashii dhashay oo yaasiin la odhan jiray waxa weeyaan waxaanu samaynay rag badan baan ahayn qoriga sabanka waxaa noo waday naftuure la odhan jiray timajilic ama bisle oo ka mid ah raggii waagii laanta buuro lagu tababaray in aad u calooladago qoryaha waaweynna yaqaana ah caloodagna aad u lahaa waxaanu samaynay xeradii baanu soo galnay xilli aan filaya inay tahay 7 oon weli ku dhicin 6 iyo wax ah yaanu xeradii nimaadnay xilligaa waxay daawanayeen ciyaarihii kubadda bay daawanayeen wiilka haddaba waxaan u calaamadeeyey saddex bartilmaameed gurigii taliska ay saxan jireen ninka ugu sarreeya brigade-ka iyo ka siyaasadda iyo aduu taliska brigade-ka oo dhan gurigoodii iyo stoorkii iyo dhaladii ay daawanayeen nimanku oo waxaan ku idhaahday derbiga shishe ku dhufa si u dhagax ugu soo noqo ilaa derbiga sabar dhagaxa kama gudbaya sabanku hadduu kaleetana uu ku qarxi uuna dee firirkiisa iyo midka dhagaxaba si uu raggan u laayo marka ugu horreysay hadda waxaan ku idhaahday waxaan u qabanay rasaastii sabanka oo xashwadii ama qarxiyey aan ugu xaraynay halka u horreeyay u geliyey waxaan ku idhi ku dhufa stoorka waa albaabka qaybta uu qalabka ku aadan yahay meeshaas weeye halkaa kaga dhufo si uu qalabkan meesha yaalla markay meelooyinkan iyo bamkan iyo rasaastan u qarxaan iyo rasaasta sabanka meesha shilku u bato kuwan daawanaya garoonka markuu qaraxaasi yeedho way boodayaan oo way kacayaan u dhex raaci kan kicitaanka ay kacaan iyagoon fadhiinoo taagan haddana derbigaa kale ku dhufo marka labaad kuwan talisku inuu wax dhacay markay maqlaan iyana way kacayaan kicitaanka iyagoon albaabka furino guriga ka soo bixin iyagana ugu dhufo albaabka daaqada waanu haynaaba haddaba noo 3 aniga iyo bedel baan xusuustaa qofkii kale ma garanayo inaanu labadanada oo isaga hooseynay wiilasha anuu taliye hurunaha isagoo taliye kooxa ahaa yaasiinkoo taliye unug ahaa 3danadaas aanu 9 nin maamul ku ahayn 3 ninna ciidan bay ahayd wiilkii haddaba wuxuu ku dhuftay stoorkiiba ku dhuftay stoorku markuu isla qarxay ee wixii rasaasi ugu jirtay ilaa mar dambe oo aan u malaynaya in 40 daqiiqo soo wareegtay soo ololka gaadhay xun baa qarxay kuwanoo saadoo qarax u yeedhay dhawaaqay oo kacay anagu dhalada iftiinkeedan ragga ku aragnaa layr saas ma arkaynin laakiin hoolka uu nagu banaan yahay waxba nagama xidho laakiin derbiga kaamirada dhaladu yaa dhanka shac derbigii ku dhuftay aad u calawad hal meel abuuna seeray markii labaad gurigii taliska albaabka ku dhufamaana dhihin daaqada uga geli baan ku daaqadiibu sidii oo kale intuu uga geliyay haddii derbigan ku dhufato waxaa laga yaabaa inay dib u soo noqoto derbiga de waxba yeeli weyn laakiin daaqada fudud markuu ka galay derbi kale ku dhaco meesha uu daqiiqi u dib ugu soo noqonayaa wixii guriga gudihiisa ku jira 3diiba sidoo kale uu yeelay midooba target ku dhuftay 5 xabaan wadanay oo 2dii kale waxaan ula hadnay hadii qorigaariyaal dhaqaajiyaan oo leedkiisa daaraan inaanu isticmaalo baabuurta ku gubno anaga markii dambe waardiga dhinaca shisha ahaa ee xagga wadada jayga ahaa yaa rasaas yar soo riday annana waa ku ridnay wax bada waa xeradii kama dhicinba rasaas yar baa dhankan oo kale kuwa nagu soo rideen iyo dhankan bidixdoo kale taliska dhabarkiisa 2diiba rasaas yar baan ugu jawaabnay min xabada ma ridin waan iska baxnay meel buura ma baan dib u bixin waxa sir balan wixii meesha ka dhacay ogaan buur yar oo dhanka shaka fuulay buurkii baan dhanka shaka soo tiirsanay biyo aan iska cabnay madaxa iska maydhanay biyo wadanay xeradii baan shanqadheedii iyo wixii dhageysanay waa dib bay ka diyaar wixii shoofayoobaday baa qalabkoodiina de meeshii stoorkuba kaga gubtayba xero kaloo dhinaca shaka ahayd saanu dareemeynay iyo shanqari ka soo yeedhay xeradii bay isweer ka wareejiyeen way isu yimaadeen waxaan qaraxan iyo waxan no ku haya girirkan bay ka yaabtayna iyaduna waxay kala soo dhaqaw qabteen oo meesha dawlad qabsay isdheer habeenka garoonka ciidanka iyaga laftooda in la galay mooyay qirirka kuwa bundada deganaa girir baa ka yeedhayay sabanka iyo qoryaha waaweyn iyada lafteedu ridayso waxay isleen magaaladii soo brigade-ki waa la qabsaday halkaas ka ridayaan tii bundadu xabaday ridaysay waaweyn qoryo waaweyn tii garoonkuna qoryo waaweyn bay ridaysay
anagu laakiin brigade ku maanu galay dadka shacabku waxay moodayeen saddexda xarab habeenkii aan galay halkan xiraana galayba oo kuwa kale cabsi iyo khalkhal unbay ka ahayd markii gariirkan maqleen iyo khasaaraha dhacay anagu habeenkii waan iska baxnay meel dhaxdaa baanu iska yarseexanay subaxii baanu ka sii kacnay inta wax xooga ma hayno oo in meeshii la isku la galay warka ma hayno wax qabalay lama joogna baanu qabalay iyo farsamadeedii wax xooga kama hayno subaxii bay diyaarada kaceen diyaaradana ku reehaabay anagii niman reerkii ugu sokeeyay oday dadka degmada goday ah oo ariley ah oo kolkaana afkii deganaa oo god weyn oo la dhaho kala gud ka sokeeyay meel qaydirey degan baanu subaxii aroor hore ku baxnay oo godayna kolka hal saac meelaha u jira odaygii baanu warranay adeer bal warran oo u arkay qorigii sabankii waxaan wadanaa waa sii talaa xalay sabankii baa igu dambeysay gariirkan xalay maqlayay goday oo gariirka ka yeelayo dagaalkii jamadii sabankii baa igu dambeysay biidhaam jamadii Soomaali galbeed adeer gacantiina cadaab Allah ka haya xalay wixii dhacay ari reerkii neef ari noo soo qabtay xalay baaruudi waa inaad maraq cabtaan oo maxaan ku dhahayaa waa leedina abaalmarin ku iloodaan abaalmarin waxaan ku niraadeen waan soconaa oo meel ari ku qalana meeshan waa magaaladii korkeeda adna lagu iimaanay arigana noo haya haddana hadaba hadaydan tan yeelaynin shaah iyo waxa bisil biil canjeere ee waana quraacatan canjeeradii reerka dhan musuuqana soo daray wuxuu noo keenay shaah halkii baan ku quraacanay helicopterta markana dul hayaabayso anagana raadinaysa rag xali magaalada galay 200 ku meedinaysa wuxuu sagaal yihiin lagama dhaadhicin ma laga dhaadhicin karo habeenkii waan iska guuray maalinkii wada xir baan soconay godkii baan ku dhaadhacnay godkii degtiisa kala aan iska harsanay casarkii baan ka caroonay god weyn oo isagana biyo fariisi ahaa oo ma dhaafaan la dhaho aan iskaga dharmeeynay casarkii aan iskaga caroonay reero meesha ku jiro oo reeguuraa ah oo dadka deegaanka waanu xagga dambe waxaan ka gaarnay wiilasha markii reerkiisa u galaynay waan anagu oday ari xareynaya maqrib ay ahayd baan yaan la hadlay adeer balooran oo fiican oo khayr oo hayo markaasuu yiraahday adeer maqoladii xalay baa tiin biir goday gashay ila dadka shacabka warkiiba wixii u istaray gaaray markaasaan goday xalay waxba ka dhacay sportina markaasuu yiri war qurigeed wadataan baan arkaayo qurigii rag xalay galay baad ka mitiini adeer tuwan soo qabtay agmaray wankan hooyo biiray qash abaalmarin labaad sida dadka shacabka u jeclaayeen inay mar walba ay cadowga waxyeeladiisa odaygii neefkii dhibay wiilashiina waxay galeen reerkii aniga hadda markaas neefkii baa caqabad ugu noqday wiilashii uma yeeri karo waa loo reero weyn oo ardoole istaba yaala waxaan isku ogeyn reerkan inaan gallo ka sii baxna ka kale saa u sii abaabula reeruhuna arkaan dhanka shisha aanu ka degno oo aanu markaa reerka waxaan usoo doonanayna xoolo markay soo xaroodaan caani iyo aanu ka qaadano oo waxayna siiyaan biyo iyo baad aan ka qaadano biyo waan wadanaaba annagaba biyo ka soo dhex baxnay neefka ariga reerkii lama mari karo reerkii baan ka wareejiyay xaggaas kale ka wareegnay xagga marka dhanka reerka uga baxay haddana wiilashii dib uma soo noqon karo way soo bixi waayeen oo igu daahan laarmi baan u afufay seedhigii ciidanka oo watay way imaadeen waxaan ku neef kale la siiyay bal noo qalo oo nimankiiba nin walbaba war reerka ari bay nagu jiro ari baa la siiyay baa reerihiiba ari badan baa la siiyay habeenkii neefkii baan iska qalanay aroortii baan iska soo tagnay wiilashii maadaama oo operation iyo hawlgal fiican ay fuliyeen annaga maalinkaas wax xoog ma hayno waa run xitaa idaacad kama dhageysanay dagaalka coballe oo idaacad ma furaninba casarkaas habeenkaas reerkii markaan joognay subaxii dambaan ku yidhi wiilashii u shiish dhigay aan ku yidhi halkaas nin walba 3 boor rasaas leedahay baa inaad toogato cadow ka soo qaad meeshii baan ku shiish dhiganay habeenimo maalinimo subaxii dambe barninkii iska soo soconay duhurkii markay tahay idaacad yaad furteen yaan furanay dagaalkii coballe maalinkaas aanu maqalay inuu dagaalka dhacay annagana wixii goday iyo dhanaan galan nolol ah markaas uu inay ahayd arbushaad inuu gurmad ka tagin oo iyagana ay iyo diyaar garow iyo hadal inaan culays oo aanu saaro inuu gurmadka goday ka baxa gaari maama ka dhanaamo qolo walba mashaqoodo iyaga la yiraahdo la kor fadhiyay hay istifaacan ama gurmad kale iyaga laftooda hal soo xoojiyo waan iska talawnay oo waxaanu u tagnay rugtii aanu ka nimaadnay iyo taarkii iyo sidaasaan dagaalkii coballe xogtiisii iyo taliskii aday ragga qaybtii kolka gashay laba qaybood baa dagaalka galay
qayb waxay ahayd gorgor oo jidgooye ahayd qola waxay ahayd inay ka galaan dhinaca dhagax buur wixii ka gurmanaya waxaa watay sheekh shaafi gaab way walaala ahaayeen sheekh cabdicisi oo qoladii calanside ee waagii eritrea ka timid ee buurahan kore ee maarmaar qolyihii waagii raggii ku shiiday buu ahaa ninkii weliba nin luuqadaha axmaariga iyo tigreega iyo yaqaano iyo luuqada carabiga baad u yaqaano waa sheekh shaafi wuxuu ahaa haddaba nin oo macallimiintii eritriyaanka iyo qolyihii hagayay ciidanka ee GPS-ka iyo sida la ii sheegay isgaarsiinta ciidanka uu ku socday ninkii hagayay buu ahaa isagoo wadada dhagax buur buu ka galayay oo jidku xidhayay naftuure isna shahiiday oo sanqalaal la oran jiray oo aan filaya markaa inuu abaanduulka qaybta ahaa laakiin abaanduulka ahaa baan filayaa wuxuu ka galay isna wadada araarsi iyo inta u dhaxaysa coballe oo ka galay isaguna qolyahan dhagax buur jidkeeda ah meena wax dagaal ameena la kulmin laakiin isagoo araarsatii ka soo baxday la dagaal galay qalab badan buu ka furtay dhishikayaal buu ka furtay naftoorayaal afar dhaawac sahlan oo badnayn baa ka dhaawacmay naftoorihii waaga isaga dalaqoonta u baahaa oo la socdayba hadda uuba joogaaba uu nool yahay waxaa la yidhahdaa dayif seexday naftoore aad qaali oo dadka oo halgamaaga in halganku ka dhammaaninay aad ruuxda ugu nooshahay oo naftoora dayif seexda la dhaho hadda xiriyaha qaxootiga xagar dheer ku noolo dadka ruuxda u nooshahay ah yaa xilliga isaga la socday oo dalaqoon u ah haddaba naftoorahaasa iyo hadda ani dadka aan taariikhdaaba ka sheekaysanayba maalinka inuu u ahaa ninkii jid marinayay wadada halkaa ka geliyey kolkii dambana dalaqoon u ahaa ay sii baxayeen baabuurtii bay ka haysteen cadowga ay ka furteen meelay mariyaan bay waayeen oo waayeen qalabka intay kala degeen bay iska tageen ilaa xitaa firxadkii coballay la dagaalgaleen coballe dhowr xiriyo waaweyn bay ahayd sideedaba xerada cadaanka ku nool yihiin Chinese-ku joogaan ee taliska abu ahaa xerana waxay ahayd xeradii Ibrahim Xaad nin oo ciidan maleeshiya beeleed lahaan jiray oo Ethiopia fangareyn jirtay wasaaradda gaashaandhigga toos u taageeri jirtay la oran jiray ninkan asla ahaa Ibrahim Xaad ninka reerkiisii iyo meeshii isagu deganaa iyo taliskiisii gaarka ahaa meel buu ku abaabulay ciidan baa u deganaa ninka damaanad qaadayna wuu baahaba amniga meesha ee loo xiray markii dambaba wuxuu damaanad qaaday amniga coballe inuu isagu sugayaba ciidanka kale militariga dheeri buu ku ahaa hadda 7 ilaa 7 xeer ay ahaayeen dhamaantood raggan ka xusuusto maxamed xabasi oo taliye qaybta ahaa taliye qaybta duufaan buu ahaa xeradan sandhoore ee wuxuu galay taliska Ibrahim Xaad ahaa ilbir oo abaanduulka qaybta ahaa shukri ilbir oo abaanduulka qaybta ahaa isagoo Chinese ku galay xerada labaad qayl weyne Allah naxariisto isagana filaya inuu ahaa taliye urur xilliga gudda qaybeed ma ahayn taliye qaybeed ahaa isna xerihii mid kamid u galay oo xeradii labaad ee tan Chinese-ka ku xigtay ahayd militarigu deganaa way badnaayeen taliye ururyaashii kale iyaguna xeriyaha kale galeen qaybtu waxay soo qaybisay xarumihii qaybtan kalena waxay u noqotay jidgooyo qoliya aan filayeen aan qarahaayeen dhagax madow iyo dhagax buru dhaxaysa iyaguna jidgal ka sameeyeen laakiin wax dagaal ayuuna meena gelin hawlgal guud oo wuxuu urur oo qorshaysan sidii ururku ugu talagalay si ka macaan uu dhacay khasaarihiisu ma badan xilli ma xabadu dhacday dagaalkan qoliyaha waxbad u hurday waa qoliyahan Chinese-ka galay salaada subax ay oo wali adu salaada subax bay ahayd oo laga baxay salaada ku kor galeen sideedaba ururka waxa dhaqan u ahaa dagaal markuu galay hawlgalka markuu 10 saac baa la kici goobta cadawga la kortagi qolo walba waxa la oran jihada ka galayaan lagu dul gabagabaysan bis salaada lagu tukan subax xabadu way sii dhicibaa qolada ku daahda dhowrka qaybood ee dagaalka loo galayo waxa laga yaabaa qolada salaada ku daahda iyagoon laga hordiyaar garow salaadii ka bixin baa inay xabadu dhacdo tan laga diyaar garow hadaba nin walba salaada iftiinkeeda waa inuu waxbada galada way ku kortukadeen ciidan commandos oo waxa ku jiray siligan lagu wareejiyay iyo waxaan oo dhan u tababaraaw sida loo fuulo iyo sida la isaga rogi loo tababaray ragga kadinka ah say waafaduubaan waardiga
adoo cadowga waxay gudaha u galeen isagoon ogaanin xerada bartankeeda galeen oo siligii iyo waardigoodii wax dhan dhaafeen wuxuu ku baraarugay cadowgu xerada bartankeedu difaac xabadu ka dhacaysaba maba ayna banaanka isku cadowga banaanka iskaga difaaci lahaayeenba maba ayna ogeynba xilli la galay xilli siliga la dhaafay xilli waardigoodii waa afduubtay oo la khaarajiyay nimankii waxay noqotay in gudihii lagu dagaalamo siligii ragaan diyaar ahayn ragga la laayay inta badan rag iska marfurtay oo iska qaawan oo taliska ciidanka meesha joogay dagaalba miyana gelinba wax yar oo kolkii dambe dhufayskii ugu dambeeyay ah yaa yar dagaalamay oo intii kuwii hore la laynay kuwa kale lala dagaalamayay diyaar garoobeen nimanka Chinese-ka la qabtay xagee laga qabtay nimanka Chinese-ka xerada dhexdeeda laga qabtay xerada laba meelood ahayd qayb waa qaybta taliskoodii iyo isgaarsiintoodii iyo gaar bay u go'aanayeen Chinese-kan iyo waardiyahoodii qaybna wuxuu ahaa taliska ciidanka oo gaar ah oo qolada yar dagaalantay bay ahayd qolyahana waa difaaca kore iyo ciidanku ah haddaba qolyahan Chinese-ka iyo xitaa meeshooda dagaal badan kama dhicin iyo ciidanka meeshiisaba inta taliska ciidanka ahayd baa waxoogaa sii diyaar garooday inta ciidanka la salaynayay oo labada ciidan ay hareeraha inta la soo cunayay iyagu staafkoodii baa diyaar garoobay xogaa dagaalku meeshaas ka yar cuslaaday oo rag ku yar shiideen aan badnayn iyo dhaawac iyo ka yimaaday walow ana goob joog ahayn laakiin xilli ma la kala food qaada lagu weeri waa barqim subaxba aroor horeba gurmad ma imaan Chinese-ka ma la kulantay martaba marra ma aragtay nimanka Chinese-ka maya ma la kulmin maadaama oo ma ayna soo dhaafin ba qaybtii gorgor iyo qaybtii duufaan ma soo dhaafin ba halkii bay noqotay hay'adii iyo marwajka iyo xuquuqul insaanka iyo lanqaybta cadsiga qoladii baan ku kala wareegay dabqaad sameeyaan ku kala wareegaan marna iyo odayaal jabhadii iyo jawxi iyo kala dabqaaday odayaasha dhaqanka qayb kamid in dadkii shacabka baa cadaadis lagu sameeyay inay la soo wareejiyo oo la laynayo odayaasha dhaqanka oo Suldaan Fosi ka mid yihiin dadkii ugaaskii kolka deegaankan uu dagaalku ka dhacay ugaaska u ahaa odayaasha shacabka waxa iyo odayaasha deegaanka oo dhan barashar waxa lagu saaray inay keenaan nimankaas hadii kale dadka shacabka loo leeyahay badan baad ku hesheen oo waxa waad ka faa'iideysteen bameedana warbaahintii iyo waxay noqotay inay u soo jeedsato indhaha ogaadeen warbaahinta oo gudaha soo galaan waliba Chinese reer galbeedka markaa muuna rabin aad buu soo horjeeday waxaan xusuustaa nin hadlayay oo ayaamahaas waxaa jira meel Afrikadan ah waa sidan oo kale lagu laayay iyagoo macdan qodaya Afrikada dhexdeeda meel aan god ay dahab ka qodayeen macdan baa ku dumay isku toddobaad ah xibaas ku adaaday nin haddaba Mareykanka ka hadlayay oo Mareykan ahaaba wuxuu ilaahay sida baalaleyda iyo meel walba ugu daadanayaan nin loo kama fiirsanayaan noloshooda iyo wixii dhibaatada meelaha riskiga ah sida baalaleyda ugu daadanayaan aan dabka markii la shido xawayaankan ku daadsan waa dhintay Soomaali nimanka Chinese-ka qayb baa dhimatay qayb way dhinteen qaybna iyagoo nool baa la qabtay kulli tirsigooda hadda ma xusuusto qaybtii Shuriil Burbaa la tagay wadanay sawirada sidan lagu sheegay Shuriil hadda meel ku shiido kaleete taliska Tigreega wakiilkoodii Cabdiile waan xusuustaa markuu idaacada ka hadlayay wuxuu yiraahday ninkii Chinese-ka laayay waanu dilay wuxuu ku shiiday Shukri Ilbir wuxuu ku shahiiday degmada Ceel Weyne meel agteeda oo dargaamaha hoostooda laga yaro quraan yar dargaamada ma jirto qaybtaadu marka gudaha ma jirto aniga gudaha waan ka soo maqnaa waxaan rabnaa inaan soo gabagabayno laba farsamaan rabnaa inaan soo gabagabayno mid waa mid oo balnaan oo labadaba aan adiga kugu reebno bal waxaad ka warantaa ma xasafad marka hawlgaladan yar yar kii isla meeraysigan dhacda amrad ka baxdo kulan dagaalkii kugu weynaa aad gashay xagwa qaabay adigu ka qayb qaadateen kii aad isleedahay marka uu kugu weynaa horta dagaalo badan baan galay laakiin hadda dagaalkii ila weynaa ama seenaho ugu saameynta dagaalka ugu saameynta badnaa ee cadawga ugu khasaaro badnaa gala wuxuu ahaa hawlgalkii General Muruketi